بسم الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية waxaa farxad weyn inoo ah annagoo ah raabitada aimada masaajida faracna ka ah munadamada ixsaan ee ricaayada ijtimaaciga ah ama daryeelka bulshada ku howlan in aan muxaadaradan idin soo qaban qaabino caawa ka dhacayso masaajidkeenan barakaysan masjidka siiska muxaadarada waxay noo soo jeedin doona fadiilat sheekh maxamed cabdi umal xafidahullah wa racaah wajazaakum allahu khayran. waxay yeelan doontaa muxaadarada su-aalo. muxaadaradu waxay ku saabsan tahay bitcoin iyo mucaamalaadka cusub ee hadda soo biiray. marka waxay yeelan doontaa su-aalo oo laga jawaabi doono inta laga gaaro khusaysana mowduucan hadda halkan aan u fadhino. falyatafadal mashkuuran maajuuran. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن كان عاوة موضوع يسو وكهر الله شيء البيتكوين حقيقتها وحكمها الشرعي. بيتكوين حقيقة ذا نحيتها هي حكم كذا الشرعي قال شرعه ما هي كقبتها. لو حلقه ama loo fadhiba insha Allah muxaadarada noqon doontaa. markii hore hal fadhi baan ku waday, laakiin sida muuqata laba fadhi u baahan tahay. fadhi waa kan oo waxaan kaga hadli doonaa insha Allah taala xaqiiqada bitcoin iyo maxay tahay, in la fahmaa ka horeysa in la xukumo. marka fahamkeeda ayaa wuxuu u baahan yahay tafaasiil fara badan iyo hadal badan yuu u baahan yahay. qodobkaasaana insha allahu tacaala darsigeena caawa ku gaabsan doonaa. fadhiga labaad oo rajaynaya habeen dambe inuu noqdo insha allahu tacaala ayaan kaga hadli doonaa xukumkeeda sharciga ah iyo wixii laga yidhi, maxaa ka khaldan, maxaa shareecada waafaqsan. waxaan doonayaa inaan ku bilaabo dhowr qodob oo hordhac. qodobka koowaadi waxa weeye ruuxa mu'minka waxaa waajib ku ah mar kasta inuu digtoon yahay oo kasabkiisa aada iyo aada uga taxadaro, xalaasha cad uu ku gaabsado, wixii xaaraan ah ama u caddaan waayana uu isaga tago. xadiidkii nabigeenna waa kii ahaa sal alla alay wasalam: alxalaalu bayinun waalxaraamu bayin wabaynahumaa umuuru mushtabihaat laa yaclamuhunna kaiiru min annaas. xalaashu waa caddahay, xaaraantuna waa caddahay. waxyaaba isku qasan oo isu eg baa u dhaxeeya. ruuxii waxyaalaha aan caddayn isaga tagaayay diintiisa iyo cirdigiisaba fayoobibuu u raadsaday oo uu ilaashaday. waa gaar ahaan mucaamalaadka cusub oo loo yaqaano almucaamalaat almucaasira iyo cuquudda cusub oo inta badan kutubtii hore fiqiga sida ay hadda u jiraan aan ugu oolin, waxay u baahan yihiin inuu ruuxu aada uga fiirsado. qodobkaasi waa qodob koowaad. qodobka labaad waa inaan ogaano waayahan dambe waxaa aada u badan waxa la yidhaahdo alixtiyaal waalnasb, sirta iyo khayaanada. kambaniyo iyo shirikaad badan oo adduunka ka jiraayay
maqsuudkoodii iyo ujeedadoodu waa inay xoolaha dadka u xeeladaystaan oo farsamo ay ku dhacaan keenaan caalamka intiisa badanna waa dad aan wax akhriyin ama aan fahmi karin waxa ka dambeeya howlahan iyo waxay ku dambeyn karaan jahliga marka dadka haysta bay uga faa'iideystaan inta badan kadibna sidaas ay xoolaha ku dhacaan waxaynu xusuusannahay sanado ka hor waxaa ina soo galay kambaniyo la dhihi jiray ama loo yaqaano sharikaatu taswiiq alharami oo badeeco la suuq geynayo ama kaadhar la qaybinayo oo dadku ay lacag siisanayaan kadibna cid walba ciday keentay ay wax ku helayso kadibna ay korayso oo ay dallacayso marka dambena abaalgud ay helayso ciddii xusuusatee kamaniyadaasi markay yimaadeen waan ka hadalay xaadaraan ka jeedinay sidan oo kale wax yar kadibna meelay galeen baa la waayay markay xoolo badan urursadeen meelay ka dhaceen waa la waayay waa qarsoomeen adduunkiina sidaa ka yihiin oo kolba meel laga degan yahay bay helaan maalinkaa markaan ka hadlaynayna dadka waxoogaa wax ka helhelay oo waxoogaa dhuuntu u yara gashay waxay lahaayeen wadaadadu ma yaqaanaan masaa-isha maba fahansanaba waxaase soo baxday inayna iyagu fahansanayn ama waxoogaa hunguri waday hadda 2 usbuuc ka hor masaajidkeenna hortiisa qolaa teendhooyin soo dhigtay waxay leeyihiin waxaan doonaynaa inaan noolayno lacagtii nebi maxamed isticmaali jiray sal alla alay wasalam oo diinaarka iyo dirhamka ah dahabka iyo fidada ah si lacagahan dowladuhu samaysteen ee gaalada ka soo jeeday ribada ku salaysan looga xoroobo dadaal waxaan ku jirnaa inaan soo celinno lacagtii nebigu isticmaali jiray sal alla alay wasalam saas daraaddeed maalgashada meeshan masaajidka nasiiska hortiisay teendhooyin soo dhigteen masaajidka jaamica mooskana teendhooyin bay dhigteen meelo badan bay dhigteen dad badan baa xoolo ku guray oo lacagtii nebigu isticmaali jiray baa isweydiisaanoo ma nebi maxamed baa samayn jiray lacagta sal alla alay wasalam mise dowladdiisaa samayn jirtay labada lacagood midna waxaa samayn jirtay dowladdii ruum oo lacagta dahabka oo diinaarka ah midda kalena waxaa samayn jirtay dowladdii furus oo waa lacagta fidada ah ee silfarka ah ma jirin lacag nebi maxamed samayn jiray sal alla alay wasalam laakiin dadka iska yar caadifaysan oo islaamka isaga caadifaysan baa waxaa la leeyahay lacagtii nebigaan soo noolaynaynaaye lacag keena khalaas dad badan baa laga urursaday xeeladaysiga noocaasa marka waa badan yahay maalin boqolaa imaanaysa barnaamij baa la keenayaa dadku waa ku daadanaya waa la isdhacaya aad bay u badan tahay waana arrimo u baahan runtii aad iyo aad in laga taxadaro oo la iska ilaaliyo qodobka saddexaad oo baraarujinta badan wuxuu yahay masaa-isha noocan oo kale ah bitcoin iyo wixii la mid ah alcumulaat alwaraqiya ama raqamiya la yidhaahdo oo hadda mawduucaanu ku saabsan yahay waxay ka mid tahay waxa la yidhaahdo almasaa'il annawaasil walwaqaa'ic almustajadda masaa-isha cusub oon horay u jirin oon culimmadu horay uga hadlin ama wax iyadoo kale aynan horay uga hadlin ee caalamka ku cusub bay ka mid yihiin ayay ka mid tahay masaladan masaa-isha noocaas oo kale ah marka go-aan laga gaadhayo oo shareecada loo bandhigayo oo xukun sharciga laga soo saarayana sida qaalibka waxay ku fiican tahay in fatwa jamaaciya ka soo baxdo si wada jir ah culimo u fadhiisatay oo baadhay oo makaashatay marka hore culimada dhaqaalaha ku takhasustay ragga aqoon-yahanka dhaqaalaha ku takhasusay kaashada oo ay u sawiraan marka hore xaaladdu say u jirto mucaamaladani say u jirto xaqiiqadeeda markaa kadibna culimadu inay saaraan xukunka sharciga ay noqoto go-aan iyo qaraar iyo fatwo ay rogrogeen kana soo baxday tiro badan oo culimada ka mid sida majaamicda fiqhiga ah hay-aadka fatwada caalamulislaami waxaa jira
يعني كل مدى قار كودو يسوق إيمانيا تقريبا كنتم بقول من علماء عالم إسلامي كيم هل مسألة الرقية قام على صاري مجاميع النوع عاصو كلية فتاوي ذا الجماعي أي مسائش النوع عنو كلا كفي عن إن أي قان كسو صاران وفتوى كسو صاران إنت أن أوجهي إلا يهدى مدعن إن فتوى ذا الجماعي إصابة حذي كلية وحل أي وحويان بحوث أي رق قاركود ديارية هي فتاوي أي علماء خاصة أصو صارين inta laga gaarayo marka kulli culimadu si jamaaciyo way uga hadli doonaa majmuuc fiqh islaami waa laga hadli doonaa laakiin inta laga gaarayo bal wixii ay ka dhaheen culimada baadhay iyo sidii masalada wax looga qoray intaan arkay baan doonaya insha Allah taala wixii aan ka fahmay inaan soo gudbiyo biidnaahi tabaaraka wa taala buxuuth dhowr ah iyo fataawi dhowr ah taqriiban 20 gaaraya ما كل دواني أو كلا دوان بين مسألة كأخري وحكم إذا مثلا مثالها فتوى أولية فتوى كصوب أحد دار الإفتاء المصرية وأولية مفتقة مصر شوقي وحكم إذا فتوى أولية هاي الشيخ عبد الله بن محمد المطلق حبن كم إذا هي هذا علماء دواوين مملكة وحكم إذا سيدو كلمة أولية هاي الدكتور علي محي الدين الغرداقي ويستقرأ نن علمي قد قالها المعاصر كنت تخصصي بحوث ربضنا له وياه وحوث جوابير يمشي إلى قطر وحكم إذا سيدو كلمة أولية هاي الدكتور عبد العزيز الفوزان وأستاذ يستقرأ جامعات السعودية وحكر لك التخصص أوليه فقهي سيدو كلمة الدكتور صلاح الصاوي ويستغنى علمي قد قالها عصب آد وحوق قرى أيها سونا بحثي كله نيل هذا أبو خالد الحجازي سيدو كله بحثي بولي نيل هذا الدكتور وليد مصطفى شاويش وكلية الفقه المالكي عمان كعميد أسونا بحثي بولي ونسغنى آخرين سيدو كله الدكتور عبد الله بن محمد العقيل وأستاذ مساعد كقسم الفقه كلية الشريعة الجامعة الإسلامية بحثي وحليه هذا الأحكام الفقهية المتعلقة بالبيتكوين أي يسقون إليه هاي تقريبا كنتم صفحة كله حكم إذا الشيخ محمد بن صالح المنجد ويسقر إن عالمة وعلمي قد قالها يسقون آد وحوش كان قرأ كم إذا إنهاس يبحث كله أيان أخريي وأن هذا كسو دياري مادة أن شيدين دون إن شاء الله تعالى أنت كذب مقدمة ذا كذب وحنري عاو حنكهل لدونا بيتكوين حقيقة المحيط كذبنا حكم كحلو تبلغنا إن أفضل نصوصا بيتكوين محاتها ما بديعة ما العقبة ما تشمبة ما إنسبة محيط حقيقة ذين لفهمه وبانت لأن وحوي الشرع مركي حكم شيء لساريو وحكاه الرياء إن شيء لا فهمه الحكم على الشيء فرع عن تصوره هو الشيء هذا سي خلط أصورته أما حقيقة دي سي خلط سي كدو نادو فهمته قطع وحكر لنا يا حكم كان صار سنة إنه خلطه حديث تصور كأي شيء حقيقة دي ساعات صورة ستوت سي صح أفهمتنا مركا وحيكوكو كالبين سائنات حكم كيسه شو أما سي صح إنات حكم كأوصارت مركا حقيقة هذا محيطها هاي بالوحي اللي جاي البنك المركزي الأوروبي سنترال بانك يوروب أي قيحي وحقوق قيحي أو حليه هو مخزون إلكتروني لقيمة نقدية على وسيلة تقنية يستخدم للقيام بمدفوعات لمتعهدين غير من أصدرها دون الحاجة إلى وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقة وتستخدم كأداة محمولة مدفوعة مقدمة عليه هاي بيتكوين وحل إلى هذا وكيد قيمة العقيدة وكورنتوكو الشقية والله مري طريقة تقنية والله استعماله بحين توحيابها اللي يسكو يشو أما اللغو بلامو سيدا ديمها إيو بديعوينك
ayadoon loo baahanin markii wax lagu bixinayo ama wax lagu iibsanayo ayadoon loo baahanin markii wax lagu kala qaadanayo account banki yani inaad account banki leedahay ama banki aad marto uma baahna waxa kale oo loo isticmaalaa sidii qalab la wato ama la xambaarsan yahay oo horay loo bixiyay oo kale macnahaasi ku qeexa bimaana wax weeyaan waa lacag kayd ah korontona ku shaqaysa badeecooyinka lagu iibsado deymaha la isaga bixiyo marka la isticmaalayana aan u baahnayn account iyo bangi aan u baahnayn labada ruux ee isticmaalaya toos ay isugu wareejinayaan iyagoon meel dhex sii marin waa lacag aan la taaban karin wax la taaban kara maaha wax ishu qaban kartana maaha laakiin waa wax uun korontada ku shaqeeyo oo lacag ahaan loo xisaabinayo oo la kala rogahayo wax lagu gadayo oo la isku wareejinayo oo qaabkaas weey macnaheedu waxa weeye waan sii faahfaahin doonaa qeexidaasi waxay tilmaamaysaa ay leedahay waa nooc lacagaha ka mid ah laakiin lacagaha kale waxay kaga duwan tahay waa electronic waa nooc waa electronic waxa la yiraahdaa wax kasto koronto ku shaqeeyo koronto la'aanteedna aan shaqeyn karin waa inay koronto hesho internetna hesho saan macnaha aan u tagi doono insha Allah ta'ala bitcoin waa magac company kamida kambaniyada sameeya lacagta aan hadda sheegnay laakiin kaligeed ma aha kambaniyada sameeya lacagaha electronic-ka ah way ka badan yihiin boqolaal way ka badan yihiin laakiin midana ugu caansan bitcoin baa ugu caansan laakiin kuwa badan oo kala jira qaar waxay leeyihiin kun bay ka badan yihiin qaar boqolaal bay gaarsiinayaan laakiin waxa ugu caansan bitcoin litecoin ethereum onecoin iyo bitkilaabo hadda kuwa mucaamalaadkeeda ku shaqeeya ka mid ama qaabkeeda u shaqeeya ku yara dhow way badan yihiin kuwa kale bitcoin waxaan u dooranay inaan uga hadalno iyada asal ah ayadaana ugu caansan ayadaana ugu ballaaran kuwa farbadaan oo kale taa jiroon iyada marin kuwana iyaday maraan oo hawsheeday ka sii hoos shaqeeyaan intuba way jiraan lacagtan haddaan lacag weyn idhaa magacyada loo yaqaano waxaa ka mid ah alcumla electroniya magaca waa loo yaqaanaa yani lacagta electroniga ah korontada ku shaqeysa sababtu waxa weeyaan samaynteeda kaydinteeda isticmaalkeeda kulli waxay isticmaashaa koronto computer iyo wixii la mid iyo internet maadaama aynan intaa ka maarmin oo la'aantood aan la isticmaali karin baa waxaa loo bixiyay marka alcumla electroniya e-money baa loo yaqaanaa e-money ayib waxaa kaloo loo yaqaanaa alcumla alraqamiya lacagta nambarada ah waxaa laga wadaa iyadana oo qaabkaa loogu magacaaba lianna lacag la taaban karo ama ishu qaban karto ma aha laakiin waa nambaro un computerka ku kaydsan internetkana loo maro nambaradaana laga soo qaaday inay lacag yihiin sidaas daraaddeed baa waxaa la yidhaahdaa lacagtii nambarada ahayd saana waa la dhahay waxaa kaloo lagu magacaabaa alcumla aliftiraadiya waa lacag laakiin lacagnimadeedu waa uun qiyaas iska qadar waaye waa muqadar waxaa taaban karta ma aha laakiin waa dihni waay adiga maskaxdaada un waxaad ka qadartaa nambaradaasi inay lacag u dhigmaan sidaas daraaddeed baa iftiraadi loo yidhi waa wax la qadaro ee wax la taaban karo maaha magacyadaas oo dhan bay leedahay alcumla electroniya alraqmiya aliftiraadiya kullu dalika waa la yidhahda ayib waxaynu ka hadlaynaa marka kadib lacagtaas see lagu sameeyaa lacagtaasi see lagu sameeyaa si ku timaadaa waa midda labaade lacagaha aan isticmaalnay dawladuhu sameeyaan iyo iyada maxaa u dhaxeeya maxaa farqi maxay ku kala duwan yihiin bitcoin-ta dadka isticmaala waa laba nooc
dadna waa dadka dhaliya oo soo saara dadna waa dad iibsada ama kiraysta kolba kii la yidhaahdaba kuwa sameeya oo shaqo intay qabtaan kadib lacagtaa dhaliya waa qolo waxaana loo isticmaalaa luqadda carabiga mustalaxa loo isticmaala waxaa la yidhahdaa altacdiin saasay u isticmaalaan altacdiin ninka samaynayna mucaddin baa la dhahaa tacdiinka asalkiisa waxaa la yidhahdaa marka luqadda carabiga lagu noqdo macaadinta dhulka laga qodo camaliyada lagu soo saaraa tacdiin la yidhahda markaad macdan qodayso dahab qodayso fido qodayso maalan aad deeman qodayso shaqadaa qoditaanka ee dahabkii lagu raadinayo macaadinta dhulka ku jirtaa waxaa la yidhaahdaa caddana tacdiinan kelimadii dahabka qodidiisa ama macaadinta qodintiisa ahayd bay marka usoo qaateen raadinta iyo dhalinta lacagta saas daraaddeed baa waxaa la yidhahdaa tacdiin luqada ingiriiskana waxaa lagu yidhahdaa mining baa lagu dhaha bimacnaa tacdiinku waa dhalinta ayib waxaa kaleeto oo sidoo kale la yidhaahdaa attanqiibna way dhaha attanqiib lacagta dhalinteeda kelimadana oo loo isticmaalaa tanqiibkana luqada carabiga waxa la yidhahdaa alfaxsu cani shay faxsan baliiqan shayga markaad si xeel dheer u baadho ayaa la yidhaahdaa naqaba waa ka qur-aanka kariimka ilaahay ku sheegay fanaqabuu fi lbilaadi hal min maxiis marka tanqiibna waa la yidhaahdaa tacdiinna waa la yidhahdaa waa kelimaadka loo isticmaalo samaynta lacagtaas camaliyada lagu samaynayo ayib luqada ingiriiskana saan tilmaanayba waxaa la yidhahdaa bitcoin mining baa la yidhahdaa bitcoin mining taasi waa kelimaadka loo isticmaalo see loo sameeya waxay leeyihiin marka la samaynayo waxaad loo baahan yahay qodobada soo socda kow cidda samaynaysaa waa inay haysato kombiyuutarro waaweyn oo awood badan oo si degdeg ah wax u cilaajinayo sariica kombiyuutarrada noocaas oo kale aadka u awood badan lacagtoodu aad bay qaali u tahay ee dhalin kara bitcointa ama lacagtaa bitcointa dhalin karaya marka la isticmaalayana kombiyuutarrada noocaasi waxay isticmaalayaan koronto aad u fara badan oo xoog badan oo lacag badan ku kacayso isaga kombiyuutarkii dhalinaya loo isticmaalayay horta aad buu qaali u yahay waa marka labaad ee kombiyuutar xoog badan waayo waa marka saddexaad ee korontada uu cunaya isticmaalayay koronto caadiya maaha wuxuu muddo gaaban ku dhammaysanayaa intaasoo kilowatt oo muxuu ahay koronto ah qarash wuxuu ku gelinaya aan caadi ahayn horta kombiyuutar noocaasa waa inuu ruux helo kow caawa waxaan u malayn ragga qaarkood inay ku foofi doonaan say u dhalin lahaayeen laakiin dhexda la isu fadhiya waa midda labaad waa in uu jiro marka la dhalinayo waa in internet jiro internet la-aan lama dhalin karo waa midda saddexaad waa in kombiyuutarka lagu sameeyo program barmaja waa in la program gareeyo programkaasi lagu sameeyey kombiyuutarka ee mucayanka ah ayaa marka waxaa loo raacayaa silsilad camaliya xisaabiya ah yaani wax weeyaan qaab xisaabeed istaba yaalla iyo nambaro iyo riyaadiyaad iyo camaliyaad xisaabiya oo aad u adag baa la maraya barnaamijka marka kombiyuutarka lagu hagaajiyo kadib waxaa ka dambeeya tillaabooyin ku salaysan xisaab oo aad u adag oo nin walba uusan ka bixi karin sidaas daraaddeed qodobka xigaayo waxa weeye ruuxa dhalinayaay waa inuu yahay maahir xariif waa inuu ku yahay tiqaniyada xadiidka yaani teknolojiyada tiqanada xadiidka waa inuu xariif ku yahay waa marka labaad inuu cilmiga xisaabta uu sidoo kale maahir xariifa ku yahay ya nin damiina ma dhalin karo nin damiin ah ama xisaabta ku dhacay ma dhalin karo camaliya xisaabiya oo barmajadaasi ay keenayso iyadana qodob kale waa maxaa markaa ka dhalanaya tillaabooyinka kadib waxaa dhalanaya silsilad dheer oo nambaro
iyo xuruuf ah nambarada iyo xuruuftaasi jidka dheer mucaqqadka loo maray ayaa marka waxa laga dhigayaa ama loo xisaabinayaa in lacag tahay wax lacag oo soo baxday ma jirto wax lacag oo daabacantayna ma jiro wax lacag oo la arko banaanka tibidna ma jiro laakiin jidka dheer markii la maray kadib baa nambaro la gaadhay iyo xuruuf kuwaasa marka waxa loo xisaabiyay inay tahay lacag kadib waxa dhacaya wala khasnadayna marka nambaradii saa u soo baxay ba waxa loo sameeynaa sidii waxyaabo akawno oo kale ama maxfado oo kale akawno oo kale ayaa loo sameeynaa fara badan akawnadii ba marka lagu kala kaydinaya mid guudna waa jira ruux walbo qayb ka noqdana akawn baa la siinaya maxfado khaas arqaamtii iyada iyo nambaradii iyaga ahaa ee lacag ahaanta u dhigtay wixii uu ka muto ku yeesho baa marka waxa loo gelinayaa khasnadiisa ama akawnkiisa electronic ah isaga liftiisu waxa dhan waa muxuu ahay waa wax uu koronto ictimaadayo ma aha wax la arkayo ba kood wuxuu leeyahay marka meesha lacagaha khasnadaha la gelinayo iyo tan guudba koodhar bay leedahay password iyo koodhar bay leedahay cidda haysata kaliya taa iska loo khaas la sidaas marka shakhsigu wuxuu haystaa nambaro fara badan oo u dhigma lacagta intaas qaabkaasi ayaa lagu dhaliyaa waxa kale oo mudan in la xuso computerka aad haysato iyo barnaamijka iyo shaqada aad gelayso iyo xisaabtaada iyo xariifnimadaada inta marka la isku daro ninba ninku kaga sareeyo ka sito waa ka lacag badanaanaya qaar baa qadaya oo labiyo eber la diray qaarna wax weyn bay kasbanayaan qaarna wax yar bay helayaan ala xasab computerka aad isticmaalayso awoodiisa iyo adiga xariifnimadaada iyo farsamadaada iyo sida tiqaniyada u taqaano bay ku xidhan tahay taas lagu kala badsanaya marka oo ninba wax ku helaya طيب taawamid taasi waa qaab kala jiro culimada qaar kood ay u tawsiifiyeen bal qaabkan isagana dhageysano wuxuu leeyahay nin kamid ah ragga baaxiinta mas'alada dhalinta oo bitcoin-ta la dhalinayo waa amaliyo ama shaqo uu shakhsi qabanayo shakhsigaasi wuxuu haystaa computer shabakad bitcoin la yiraahdo la sameeyay waa ka hadli doonaa ayuu marka la xiriiraya ruuxan lacagta bitcoin-ta helaya muxuu qabanayaa shaqadu qabanayaa ma aha lacag inuu abuurayo laakiin shaqadu qabanaya uu wax ku helayaa waxay tahay shabakadan bitcoin iskale ayuu khidmad u qabanayaa khidmadu u qabanayay waxay ku siinayaan abaalgud ku siinayaan seeway suura midalan u yara dhow oo la fahmi kara waxay tahay bangiga markaad bangiga tagto shaqaalaha bangiga fadhiyo koontiyada fadhiyay koontarada fadhiyay waxay u xilsaaran yihiin lacagaha in ay baaraan lacagta aad keensatay bangiga gashanayso inay baaraan lacagtu ma fake ba mise waa lacag sax check-gan aad la timid ma check falso oo fake ba mise waa check sax lacag account-kaaga ma ku jirtaa mar hore miyaad isticmaashay mise hadda u horeysa saxiixaagu ma saxsan yahay muxuu ahay accountiga numberkiisan aad rabto inaad lacagta gashato ama kala baxday ma saxba adiga hawiyada aad wadatay iyo kaarka aad wadatay ma saxsan tahay oo ruuxi account-ka laha ma tahay adiga lafahantaadi mise mid iska dhigayaad lacag ku filan meesha ma kuugu jirtaa intaas oo dhan yaa qabanaya waxaa qabanaya ninkan shaqaalaha ee bangiga meesha u fadhiya sidaasuna mushahar ku qaadanaya ninkan mucaddinka la yiraahdo ee bitcoin-ta wax helahaya sameynayana wuxuu leeyahay waa sidaas oo kale
سوي وحليه شقده وقبناياي ما أها إنه وح أبوريو شبكة بيتكوين بشقة وقبنايا شقده وقبنايانا وشقة وعملية رقابية إلكترونية وحوورديين يا شقة كالصعوطة بحوقها هاي الشبكة كالصعوطة بوورديين وساعة كمبيوتر فرح بدن الشبكة بيتكوين كحراني وحا استعماليا ضدك حبنها كالشبكة سو استعماليان وحي استعماليان لعاقه بيسوقو وريتشينيان ويكو كلا صرفانيان وحبي يكو كلا قدانيان معاملة دحمريسا سارو تجدون بيتكوينكا ضدك وحكو كلا وريتشينيا إيميل ممران لبدا الروح معاملة دحمريسا توس السوقو وريتشينيا نيكري مركا وحوي بيتكوين تصمينيا وحيليا شقدا سوهبينيا لبدا الروح وحسود درايا الشبكة بيتكوين استعمالية ميد والبا حبين كيها وريجينتا اي لعقتا اسو وريجينيان بو هوبينيا ما صحسنتahay mise ma saxsana halkaasana abaal gud lagu siinaya oo uu ku siinaya shabakada ku siinaysa tiyo kale la mid wuxuu sameeynaya marka laba shay buu xaqiijinaya ninkan computerka weyn haysta internetka ugu rakiban yahay muwaasafaadkii aan soo sheegnay isaguna xariifka ah shabakada ku xiran bitcoin shabakadeeda ku xiran wuxuu sameeynayaa laba arrimood buu hubinaya lacagta marka la isu wareejinayo waxay u baahan tahay in ruuxa la garan maayo waxa kamida bitcoin hawlaheedaba waxa kamida ruuxa wax diray inaan la garanin ka loo dirayna inaan la garanin bitcoin mid kalena lama yaqaan caalam wada majhuula wax sidaas daraadeed waxaad u baahan tahay un keliyata in saxiix aad leedahay oo ay hayso bitcoin oo electronic ah in aad bixiso risaalo gaaban iyo fariin gaabanna inaad dirto oo lacagta inaad wareejin rabto koodkaagii iyo passwordkii lacagtani lahaydna inaad raaciso inta markaad dirto shabakada lagu wada jira ee bitcoin lacagtii aad dirtay ciddii aad u dirtay 10 daqiiqo gudahood bay ugu wareejinayaan laakiin goormay wareejinayaan waa markay hubiyaan macluumaadka maxay hubinayaan ciddan diraysa saxiix inuu kiisiyo koodka lacagta loo isticmaali keedi inuu yahay kan loo dirayo inuu ciwaanku sax yahay sida ruuxii bangiga fadhiyo kale intaasay hubinayaan markay inta hubiyaan bay lacagta sii deynayaan marka lacagtii aad ruuxa u dirtay ama aad wax kaga sarrifanaysa ama aad wax kaga gadanaysa طيب shaqada iyada marka aan tilmaanay inta ah shabakadu inay qabato iyadu ma sameeynaysaa waxay u xil saaraysaa cidii shaqada qabata abaal gud buulay waxa la wixii xariif aha ee awood laha ee kumbiyuutarada nooca laha ee adduunka jiray baa tartan galaya marka tartan waxay u galayaan 10 daqiiqo u dambeysay mucaamalaadkii shabakada bitcoin maray ee wax la isugu kala wareejinayay mucaamalaadkaasi maxaa sax maxaa khaldan ayaa tartan loo galayaa cidii muwaasafaadka iyo kombiyuutarada aan soo sheegnay haysatay adduunka oo dhan shabakadana ku xidhnayd ayaa marka tartan galay tartanka markay galaan rag baa ku guuleysanaya oo mucaamalaadkii saxaya kadibna sabab u noqonaya lacagta inay socoto ka u horeeya marka ku guuleysta abaal gudle intii kale ee laga hormarayna waxa male korontada iska bixiya kharashkooda iyagu hay isqabaan laakiin kii ugu horeeyay ee hawsha qabtay ee saxay ee lacagtan la wareejiyay la soo diray inay sax tahay xaqiiqi kadibna block weyn oo lagu wada jiro galiyay ruuxaas ayaa abaalgud loo shabakadu abaalgud siinaysa meeshaas marka galinaya wuxuu hubinayaa qodobada iyada waxa kale uu hubinayaa hadda ka hor lacagtan in aan la dirin oo koodhkan iyo numberada hadda ka hor in aan la dirin uu xaqiijinaya saysan isdiwaajiye u dhaay kadibna markuu xaqiijiyo wuxuu ku shubay gelinayaa dhammaantood hawl u wada furan ama meel u wada furan oo la yiraahdo
blockchain baa la yidhahdaa blockchain ayay ku ridayaan marka iyadana waxa waa diiwaan weyn blockchain-kaas waa diiwaan weyn oo electronic ah oo wax alla wixii mucaamalaad bitcoin ay samaysay ilaa maalinkay dhalatay ilaa maanta wax alla waxay mucaamalaad samaysay oo dhan baa laga xaqiijiyaa oo halkaa ku jira halkaasuu marka gelinayaa wuu xaqiijinayaa kadibna wuu wareejinayaa sidaasuu marka ku samaynayaa faa'iidadu maxay tahay marka ninkan abaalgudka la siinayaa muxuu abaalgudka ku mutay faa'iidadiisu maxay tahay shaqada uu qabtay waa inuu xaqiijiyey lacagihii la isu xawilay iyo taxwiilkan iyo dadka isu xawilaya iyo macluumaadku inay sax yihiin intaasuu ku mutay kadibna diiwaankaasi weyn buu gelinayaa saan tilmaannay cid kasta oo awoodaalana marka way u furan tahay markii ay mucaamaladaasi marka lagu tartamo waxaynu nidhi cid kasta oo awooddaa leh baa u furan tahay laakiin 10kii daqiiqaba hal nin basaa guulaysanaya si u xadeeyaan baa waxay ka dhigeen 10kii daqiiqaba soo geli maayo inta boqolaal ruux baa soo gelaysa sooba oo tartanka gelaysa adduunka laga soo wada gelaya kambaniyada ashqaasta cidii awoodda leh oo dhan baa soo gelaysa laakiin 10kii daqiiqaba hal ruux baa guulaysan kara oo mucaamalaad taasoo kaleeta ah sixi kara oo wixii loo baahnaa xaqiijin karaya 10ka daqiiqo ruuxa xaqiijiyay baa marka abaalgud iska leh 10ka daqiiqo kumayaalkii kale soo galay ee kombiyuutarada kharashka faraha badan isticmaalay ee internetka isticmaalay ee korontada badan cunay kumayaalka kale xoolahoodi waa gubteen cidna waxba kuma laha laakiin halkaasi bakhtiyaar nasiibku ku soo baxay ee ragga ka soo hormaray kaasaa wuxuu leeyahay abaalgud buu wuxuu ku leeyahay ee kambaniga ayuu ku leeyahay oo macnaha wax weeyaan shabakada bitcoin ayuu ku leeyahay abaalgudkaasi waa abaalgud isaga laftiisu xadidan konton lacagta bitcoin ah baa la siinayaa konton shilin soo ma dhahan meesha lacagteenu shilin ka tahay oo dollar ka yahay oo riyaal ka yahay lacagtan waxaa la yidhaahdaa bitcoin marka konton bitcoin baa la siinaya oo u dhiganta maxay dollarka waxbay uga dhigantaa yuuradana waxbay uga dhigantaa lacagaha sarifka adduunka waxbay uga dhigantaa wayna ka qaalisan tahay dollarka way ka qaalisan tahay euro way ka qaalisan tahay lacag adduunka alla qiimo ama jirta kulli way shiindaysa banaanka maraysa marka konton bitcoin ayaa la siinayaa camaliyada ciddii ku guulaysata طيب abaalgudka noocaasi ay shirkadu ay shabakadu bixinayso afartii sanaba hoos bay u dhigtaa nisbay goysaa afar sano markay dhamaato hadana nisbay goysaa 25 bay tagi hadana waa la sii goynaa hoos bay u sii dhici 12.5 bay tagi hadana hoos bay u sii tagi ilaa ay marka dambe tagto 0 بمعنى واحد شقدي ويدمات ويصوح رنتي وقت كان ولا قاري دونا بيليه هنا حل السقف واحد شراء ميل أن لا تعرفين بشرو بيتكوين تمركا أي قاردو لباتن يكو مليون أو بيتكوين مركا قاردو واحد رنتي هوري وسي سعون بس شقدي نوي دمات محاكا ضمبي دونا lacagtii xagee aaday sabay ku sii socon doontaa waa caalam majhuul oo la garanaynin laakiin waxay ku xadideen 21 milyan oo bitcoin maxay u dhigantaa dollarka waxay u dhigantaa billions bay u dhigantaa billions dollar bay u dhigantaa kolba sarifka iyo meesha maraya ku xiranta طيب waxay ugu xadideen ayagu siday leeyihiin waxaa la gaari doonaa lacagtaas la soo saarayo waxay gaari doontaa limitka iyo saqfiga ugu sareeya oo 21 milyan oo bitcoin waxay gaari doontaa sanadku markuu yahay 2140
inta ka horeysa la gaari maayo maxay xadka ugu sameeyeen ama limitka ugu sameeyeen waxay leeyihiin waxay ka yaabayaan lacagtani inay isjabiso oo de wax badan hadii la soo daayo qiimaheeda dhacayo Soomaa way tashiilayaan marka ay tashiilayaan saynis isu qiimo jabinin ila lacagaha waxay ku qiimo jabaan waxa kamida lacag fara badan hadii inta la daabaco suuqa lagu soo daayo lacagta way qiimo dhici marka waa inay jirto xad ayna dhaafi karin tartiibkaas ay marka ay ku wadaan qaabkaasi culimada qaar kamida ama ragga baaxidiinta qaar kamida u sawiray oo waxay yiraahdeen shabakada bitcoin oo uu tagi doono yaa sameeyay xagee ka soo jeeda shabakada ayaa shaqo loo qabanaya shaqada loo qabanayaana abaalgud lacageed oo bitcoin lagu mudanaya shaqada la qabanayana waa tan soo sharaxnay طيب معناها زميات فهمتين ما هذه لا صعطة طيب lacagtaasi markay soo baxdo oo ninkii hawsha qabtay leeyahay konton bitcoin baa kuugu jirta account-kaaga electronic-ka ama maxfadadaada kuugu jirta markaas uu isticmaalaya sabab isticmaalaya wuxuu isticmaalayaa adduunka meelo kamida company kamida ayuu wax kaga gadanaya waxa jira muxuu ahay maqaayado adduunka kamida waaweyn oo ictiraafsan oo wax laga cuno waxa jira dawladaha qaar kamida oo saamaxay oo dollarka lagu sarifan kara waxa jira jaamacadaha qaar kood oo ogolaaday oo fiigi jaamacada aad iskaga bixin karto hadaa doontana lacagahan jiraad ku sarifan oo euro iyo dollar baad ku bedelan iyadoo cadaan abad qaadan la dhaqaaq hadaa doontana sida Safaricom lacagta inoogu jirto kala Soomaaliya min beesada lacag noogu jirto sidaas oo kale aad u isticmaaliyo numberraad diri oo ruux baad siin ku sadaqaysan mid baad wax kaga sarifan mid baad wax kaga iibsan waa numberro la kala dirayo way numberro la isticmaalayo electronic ah sida loo diray watan soo sheegnay sidoodaba waxay ugu tala galeen dadka isticmaalaya lacagtan bitcoin-ka inaan la ogaanin leen adduunkii waa la isdaba galay Soomaa nin Mareykan la yiraahdo reer galbeed iyo Jin iyo Jaan ayaaba ruuxii waxoogaa diraba raadsanay xageed ka keentay seed ku keentay say kugu soo gashay yaad u diraysaa sababtu maxay tahay warada roona iskale maxay idinka galay idinka nimankan marka waxay ku tala galeen inay waxa soo dhan ka dhuntaan ruuxa diraya lama yaqaan koodad baa la isticmaalay iyo numero ka loo dirayo lama yaqaan dariiqay marayso lacagaha adduunka hadda markaad xawisho dirtood bangiyada mariso Mareykan bay aadaan salaam saadaan lacagtu marka hore Mareykan bay ku dhici Mareykan markay ku dhacdo kadib baa la soo diray ma jirto wax saalayn ولا أمريكا بعد مرين ولا سنترال بنكي بعد مرين ولا منظمة بعد مرين تص هذه الروح أدونك عرف كسجوجي أياد سودريسا ليد منا يقان معاملات نوع عسى مركز لوجس همية لعكتي مركي هذا الشو محفظة هذا سوق شو كون كاج إلكترونيكا أي شو هذا مركز استعمالية قابل رقمي هذا استعمالية سيدا صدوق على الدراسة صدوق حقوقي بسنيس ووحون أذيك أدسلي وروحن ما تشين بسمي تشين إن الله وحاجر موقت نولش عيبكع ومعاملات الله استعماله وحكي يبسده وقاب وحكي يبسده مركب واحد قرصون أو كلا الصعود أو هدنا الجرنين وحلا يلا نقطة سأستردد أنت اللي جا أوجيه بيتكوين أو اللي جا فهمي هي أنت قرصون بابا ولي حقيقة ده الرسمي كأ si waadixa oo la isla ogol yahay looma gaarin qodobka markaan inta kaga soo gudubno aynu nimaadno maxay ku kala duwan yihiin lacagaan hadda la isticmaalo iyo bitcoin lacagteedu maxay ku kala duwan yihiin qodobo dhowr ay ku kala duwan yihiin ama fawaariq asaasiya jira oo jawhariya qodobka koobaad ay ku kala duwan yihiin waxa weeye lacagaan hadda la isticmaalo waa wax la taaban karo oo la arki karo oo maxsuusa oo malmuusa oo fiziyaai ah waa shay wujuud lahu la arki karo waa
waraaqa ka samaysan مواد kale ka samaysan ama lacagahan electronic bitcoin iyo wixii la halmaalo oo kambaniyada noocaas lacagahoodu wax la taaban kara maaha waxaynu niri waa nambaro waa lacag qiyaas waa nambaro ka dhex muuqda accountnada electronic ee dadku ay leeyihiin iyo shabakada kambaniga ka dhex muuqda waa nambaro طيب markuu ruuxu diro kaba soo qaad nambarada kuugu jiray account-kaaga electronic wuxuu ahaa konton waxa kuugu jirta bitcoin konton bitcoin markay kuugu jirtay lacag baad ka dirtay ka xawish ama waxbaad kaga iibsatay waxa isdhimaya nambaradii meesha kuugu jiray baa isdhimaya midka aad u dirtayna nambaradii ku jiray maxfadadiisa ama account-kiisa electronic baa siyaadaya wax lacag oo la isdhaafsaday ma jiro wax la taabtay ma jiro laakiin nambarra la isu diray adiga la xdirayna nambarkaagii baa hoos u dhacay ka aad u dirtay la wareegayna nambarkiisi baa kor kaca kullina shabakada iyo meeshaas laga wada maamulay ku jiraan macna saas daraadeed ba culimada qaar kamid waxay ku magacaabeen nuqud dhihniya tasawuriya waa lacag maskaxda suuraysi maskaxda ku jira mooyaan wax la taaban karo ma aha رموز يبصوالي يكورد يوحاسون با لو استعمال دنك horta way ku kala duwan yihiin oo lacagahan aan isticmaalo waa lacag la taaban karo bitcoin lacagteeda iyo kambaniyada la midka ana lacagtooda wax la taaban karo ma mid labaad iyo qodobka labaad ee ku kala duwan waxa weeye al-intaaj soo saarida lacagahan hadda aan isticmaalo waxa soo saara jihooyin la yaqaano dawlado la yaqaano bangiyo dhexe oo ay leeyihiin wasaarado la yiraahdo wasaaradaha dhaqaalaha munadamaad noocaas oo la yaqaano baa lacagaha hadda la isticmaalo sameeya Kenya kale soo ma joogno wasaaradda maaliyaha wasaaradda dhaqaalaha central bank baa lacagaha maamula lacagta Kenya isaga markii loo baahay soo sameeya isaga muxuu ahaay masterka isaga damaana asaga ilaaliyo lacagtu inay qiimo dhacdo ka ilaaliya lacagaha marka waxay leeyihiin hadda la isticmaalo jihooyin la yaqaano oo sameeyay oo ilaaliya oo xifdiya oo dhowrah bay leeyihiin ama bitcoin ta lacagteedu masterkeeda lama yaqaan cid walbana oo awoodaan soo sheegnay lana way sameyn kartaa oo qalabkii aan soo sheegnay leh xariifnimadii leh aqoonti tiqaniga leh uu sameyn karaa bimaana jiha gooniya male iska furanta adiga raganimadaada iyo xariifnimadaada kugu xidhantay laakiin lacagahan kale adduunku isticmaalo meel loogu hagaagay dawlad baale dawladdaasana sameysay dawladdaasana ilaalisa Soomaaliga waa qodob kale waa qodobka kale ku kala duwan yahay saddexaad waxa weeye wax la yiraahdo at-tahakkum lacagahan hadda adduunka la isticmaalo waxa kontroola jihooyinka soo saaray dawladda soo saartay iyo jihada soo saartay baa kontroolsha iyada daabacada iyada faafisa iyada qiimaha lacagta xadida iyada sarifka qiimaha sarifka xadida iyada dhaqdhaqaaqa suuqa lacagtu ay leedahay iyada kontroolsha mucaamalaadka lagu sameeyo lacagtaas iyada tandiimisa lacagtaasi inay dhacdo iyada ka ilaalisa marka wax weeyaan waxa jira lacagahan hadda la isticmaalo control bay ku jiraan dawladaha controla dawladaha iska la sameeyaa control ama bitcoin iyo lacagaha la midka cumulaat electronic la yiraahdo ayadu sida ma hay'ad markaziya oo la yaqaano controlsha ma jirto qaabka lagu sameeyana waa qaabka aan soo sheegnay oo nin kasto awood leh uu sameyn karo qaabka la isugu wareejiyana waxaynu nidhi waa toos الند للند بير تو بير بير تو بير يعني ند تو ند لبدا الطرف معاملونيا با توس isugu wareejinay cid ma marto cid ma maamuli karto dadka isticmaaloon ayagaasa ku taxakuma dawlad male markazi male centralism male ayagaasa say doonaan ugu tasarrufa waa dadka isticmaalo dhan adduunka kala jooga laakiin malaha jiha markaziya oo ku taxakumto kontrolsho lacagta bitcoin male
waxaa kaloo ku kale iyadoo sidoo kale ah mudan inaan tilmaano lacagta bitcoin waxay leedahay sarif u khaas suuq u khaas oo sarif bay leedahay qiimaheeda iyada samaysata ma jiro suuqyadan kaleete ee adduunka ee lacagaha lagu kala sarifto sarifka lacagahana lagu qiimeeyo mu'ashiraadka iyo waxa noqon doontana lagu qiimeeyo malaha ayadu waxay leedahay kulli wax soo wax ka baxsan tahay waa dawlad iskeed u madax bannaan lacag iskeed u madax bannaan waxay leedahay qiimo sarif oo iyada u gooniya waxay leedahay suuqyo u gooniya ayay samaysatay oo marna kor u kaca marna hoos u dhaca waxa kale to iyadana ay ku kala duwan yihiin lacagahan hadda la isticmaalo ee waraqiga la yiraahdo ama taqliidiga la yiraahdo marka la samaynayo asal ahaan laba mid bay lacag ku noqdaan inay lacagahani dahab iyo macdan qaali ah ay salka ku hayaan iyo in marka la samaynayo oo dawladdu samaynayso waxa kale oo la fiiriyaa waxa la yiraahdo al-intaaj al-qawmi wax soo saarka dalka ayaa sidoo kale la fiiriyaa waxyaalo fara badan baa lagu saleeyaa marka dawladdu lacag samaysanayso laakiin bitcoin iyada malaha asal dahab oo ka yaala malaha dawladda soo saaraysa iyo wax soo saarkeeda xagga muxuu ahaay qawmiga ana kuma salaysna i'tibaaraadka lacagihii hore ay lahaayeen oo dhan hal kamida malaha bal dadka isticmaalaya ayay iyadu guud ahaanteeda bilow iyo dhamaadba ay ku xidhan tahay iyagaas ayaa muxuu ahaay maamula oo say doonaan ka yeela oo iyagaas muxuu ahaay ama ku khasaara ama ku faa'iida laakiin malaha tilmaamaha ay lacaguhu leeyihiin dhamaantood malaha waxay ku kala duwan yihiin lacagta bitcoin iyo midan kaararka aan isticmaalayno kaarba isticmaal bangiyadu kaarar bay bixiyaan Soomaa bangiga kaar buu bixiyaa lacagta lagu la baxo Soomaa Safaricom M-Pesa hada lacag bay ugu jirta lacagta isticmaalkeeduna waxay u baahan tahay waa number la dirayo Soomaa number la dirayo waay kadibna password-kaaga maxay kaga duwan tahay waxay kaga duwan farq weyn baa u dhaxeeya lacagahan bangiyada kaararkooda lagu isticmaalayo ama M-Pesada lagu isticmaalayo lacag xaqiiqi ah oo ku taala bay matalaysaa lacag la taaban kara ku taala bangiga ku taala kaarkani wuxuu ku sahlayaa oo lacagtii ku taala bangiga isticmaasho Safaricom lacagtaadani waa lacag taala waay ama ajensiyadeeda haya ama ayada haysa lacagtii un baa lagu sahlay inaad isticmaali karayso laakiin waa lacag jirto la taaban karo laakiin la sahlay oo kaararkan lagu sahlay waay ama bitcoin mala asalba malaha lacag ay matasho oo meel taala ma jirto saas daraadeed kaararkan la isticmaaliyo lacagahan raqamka lagu isticmaaliyo numberada ee internetka la maro iyo bitcoin ayadana shaqo isku malaha oo furuq waaweyn ayaa iyadana u dhaxaysa aanu gudubno lacagtan taariikhdeeda bitcoin taariikhdeeda waxa la leeyahay oo sheekadu ay leedahay lacagtan ama shabakadan markii ugu horeeyay la sameeyay waxay ahayd 2007 milaadiga waxaana bilaabay bay leeyihiin nin magaca la yiraahdo Satoshi Nakamoto Satoshi Nakamoto waa magac Japaani ah magacu Japan buu yaray Japan buuna ka bilaabay baa la leeyahay magacaasi cid leh waa la waayay markii hore waxa loo saaray nin Japanese ah asagiina wuu inkiro wuxuu aniga ma ihi wuu iska fogay mar dambe oo barnaamijku suuq galay baa waxa sheegtay nin u dhashay Australia asagiina hadii la daba galay inuu beenaalay yahay la soo ogaanay sidaas dalaadeed lacagta bitcoin abi hooyo toona ma laha waa gablan wax barnaamijkan iskalena ilaa iyo hadda waa la garan lahayd lama yaqaan qoraalada qaar kamid ah waxay tilmaamayaan Satoshi-gaasi
hal ruux magaciisa ma ahee waa koox barnaamijkan samaysay baa magacan leh ee hal ruux ma bahaba calaa kulli xaal aduu ama ruux ka dhig ama koox ka dhige lama yaqaan farsamadan iyo shabakadan markuu sameeyey markii ugu horeysay wuxuu u sameeyey page buu u sameeyey ama wuxuu u sameeyey whatsapp buu u sameeyey oo ku magacaabay bitcoin.org markii ugu horeysay 2008 ayuu sameeyey lacagtii ugu horeysay ee la sameeyay bitcoin ah waxay soo dhacday oo soo shaqo gashay bishii January 2009 inagana goormayna soo gaadhay sanad ma dhanna intaan warkeedu ma maqlayno mar walba marka annaga adduunka waa ka dambaynaa wax caalam soo gubay oo lagu rogmaday ama waa hore lagu taajiray oo lagu tagay umarna gadaal ka qabsanaa sideenaba marka ay lacagtaasi suuqa soo gashay markii ugu horeysay 2009 waxa la leeyahay marka la fiiriyo hal bitcoin in la soo saaro kharashka ku baxay halkii bitcoin kharashka ku baxay wuxuu ahaa la yiraahdaa $1,309 macnaheedu muxuu yahay computerka la isticmaalay korontadii la isticmaalay farsamadii la geliyay marka la qiimeeyo halkii bitcoin ee la soo saaray waxa ku kacay kharash u dhigma $1,309 war wala khasaaray soo maarita wala jabay halka markay joogto ayaa waxay u sameeyeen suuq lagu kala bedesho oo boorsado kale boorsada caalamiga oo kale oo lagu kala sarifto lagu kala wareejisto ayaa waxa loo sameeyay sanadkii 2010 halkaas marka waxay bilowday lacagtaasi inay marka adduunka soo gasho mar ay kor u kacdo mar hoos u dhacdo sida aan ku tilmaami doono faqrada soo socota oo tadabdubka طيب markay soo gashay suuqa kadib ilaa hadda la soo gaaro 2008 aan joogno bishii labaad aan joogno February lacagtaasi marka la fiiriyo marna cirbay aaday marna dhulkay ku dhacday waxa loo yaqaan tadabdubka sicirkeeda iyo qiimaheeda wadan soo tilmaanay waxay leedahay sicirka sarifka oo iyada u khaasa bitcoin u khaas ay leedahay oo la wadaagin iyada sicirka sameynaysa hadda waxay ka tilmaano mesela maraaxiisha soo martay markii lacagta suuqa la soo galiyay kharashkii ku baxay waa ka sheegnay qiimihii sameeyna sheegay suuqa markii la keenay ugu horeysay halkii bitcoin wuxuu u dhigmay senti 100 meelood loo qaybiyay senti dollar sentigiis ma $1 ma senti 100 meelood loo qaybiyay meel kamid ayaa waxa u dhigmay halkii bitcoin sarifkiisu waxa weeyaan senti 100 meelood loo qaybiyay meel kamid ama ka sii yar marka kee maxaa qaalisa ma dollarka mise bitcoin dollarka qaalisa waxa ma bahaba bitcoin waxba ma ahayn waa markii ugu horeysay markii la gaaray 2011 bishii labaad say u soo siqaysay baa waxay soo gaadhay halkii bitcoin inuu u dhigmo $1 waa goorma 2011 bishii February bishii labaad isla sanadka laftiisa bishiisa 7 oo July ayaa wuxuu gaadhay halkii bitcoin wuxuu gaadhay $35 bishii labaad muxuu ahaa $1 bishii 7aadna muxuu gaadhay $35 buu gaadhay bitcoin-kii baa ka qaalisan dollarkii طيب ila socdo bishii 12aad oo isla sanadka laftiisa 2011 halkii bitcoin wuxuu hoos ugu dhacay $2 oo fiirsada tadabdubka ciyaarta oo fiirsoo ciyaaray
bishii labaad wuxuu ahaa $1 bishii toddobaad wuxuu gaadhay $35 bishii 12aad oo isla sanadkaana wuxuu hoos ugu dhacay $2 kadib uu haddana bilaabay inuu kor u soo kaco bishii 12aad oo sanadkii 2013 ayuu haddana wuxuu gaadhay halkii bitcoin $1,000 $1,000 buu soo kacay markii la gaadhay sanadkii 2015 bishii saddexaad ayaa meeshii $1,000 uu gaadhay haddana wuxuu u soo dhacay $100 halkii bitcoin $100 sidaasuu marka ku socday طالع نازل mar kor u kac mar dhulka ku soo dhac saasuu ku socday ilaa markii ugu dambeysay bishii 12aad sanadkii hadda ina dhaafay 2017 bishii 12aad soo hadda ma dhaweyn waxa ka soo wareegtay la bil miyaa ka soo wareegtay laba bil Soomaa wuxuu gaadhay halkii bitcoin $19,400 buu gaadhay waa lacagta adduunka ugu qaalisan wax muddo kooban oo dhowr sano gudahooda sax u kacay sucuud saaruukhiya sameeyay taariikhda adduunka lacag saas lama soo marin maba jirtaba wuxuu markuu joogo sanadkan la soo gaadhay January iyo February uu soo dhacay halkii bitcoin wuxuu marayaa hadda 10,000 mar dhowr iyo 10,000 19 waa ka soo dhacay idinka ma qalin ka qaada xogaa $1,000 baan bixiyay iyo waxaan bixiyay $2,000 baan sheekh bixiyay iyo warkaas aad maqlaysa macnaheedu waxa weeye hal bitcoin xataa meedan iibsanin maad cilaad ciyaar sentiyad iibsanaysan sentiyo hal bitcoin xataa meedan ka mas'aladaas maxay tilmaamaysaa marka lacagta la yiraahdo bitcoin to mucaamaladeedu lacag fadhida ma aha inay ciyaarto waxyaalo badan baa keenaya dawladaha qaar kamida markay soo dhaweeyaan way kacdaa markii la maqlo dawladaha qaar kood baa joojinaya sida China iyo Mareykanka iyo dawlado la midana mujarrad ishaaca faaftana dhulka ku dhacda ilaa hadda tacaamulkeeda ma in bangiyadooda markasiga ogolaadeen laakiin tacaamulkeeda in lagu tacaamulo dawladda ogolaaday baa jira ma se badna waxa kamida mesela Switzerland kamida Jarmalka waxa kamida Japan dawladaha jira xogaa isticmaalkeeda yara saamaxay qaar waxa jira ku qaatay ama canshuur ahaan ku qaatay jaamacada waxa jira ku qaatay mesela fiigi ku qaatay waa jira laakiin boqolkiiba 99 dawladaha caalamka iyo hay'adkooda lacagta way diidan yihiin way ka soo horjeedaan dawladaha ogolaadayna waxay leeyihiin danbay kaliya waxa kamida mesela waxyaalaha Kenya kordhac iyo hoos u dhaca kambaniyada waaweyn ee isticmaala qaar kamida haday kacaan oo suuqa ka baxaan way dhici hadii kambaniyo cusub oo waaweyn ay ogolaadaan oo qaataan way kici hadii marmarka qaar kood ay dhacdo budcada oo internetka budcad badeed baad maqashay budcada internetku ma jiraan budcadka internetku haday intay jabsadaan lacag ka qaataan oo warkaasi soo baxo dhulkay ku dhacay way soo dhacaysaa marna marka korbay aadi awaamil ba saameynay awaamil khariji oo kuwa la mid ah saameynay kor ka caadi hoos u dhacaadi mesela mar dhaxa waxa faaftay inay China joojinayso lacagta bitcoin ka isticmaalkeeda mujarrad ay shaacadaas soo baxday lacagtii dhulkay tagtay marka waxyaalo waxa jira saameyn kule lacagta tadabburkeeda kor ka caadi hoos u kaceeda oo ay ka mid yihiin qodobada aan tilmaanay bitcoin inaynu fahanno ayuu ahaa darsigeena qaybtiisa hore waa laga yaabaa dadka qaar kood inay ku wareeraan oo ay yiraahdaan warwaadka wuxuu akhrinayaa diinba ma aha meesha muxaadarad diin baa loo yimid xukun sharciye
waxaan nambaradan iyo internet iyo computer iyo waxaan wadaadku akhrinay wixii loo yimid ma aha laakiin waxaan ugu talagalay in aan bal horta aan sharxo bitcoin maxay tahay say u shaqaysaa say lacagtan lagu dhaliyaa muxuu ahay yaa isticmaala yaa ictiraafay yaan ictiraafayn taasaa waxay qayb ka noqon doontaa markaan fahanno xaqiiqadeeda oon suuro saxa ka helo inaan markaa kadib u gudubno shareecadu maxay ka qabtaa waana darsigeenna insha allahu tacaala habeen dambe kaasaan markaa kadib xadiis baa sidan ay aayad baa sidaa tiri sheekheel baa sidaa yidhi kaasaynu ku sheegi doonaa insha allahu tacaala hada billahi tawfiiq wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam